magaaladan laga guuray ee dalka Talyaaniga ku taala waxay doonaysaa inay noqoto meel loo soo hooydo marka aad doonayso inaad fasax ku qaadato buraha Yurub. muwaadiniinta badankoodu waxay ka hayaameen magaalada kadib dhulgariirkii sanadkii 1968. dhulgariirkaas kadib waxaa jira dhismayaal badan oo weli magaalada ka sii taagan oo halwanaya cidna aan ku noolayn. tiyaataro, maktabado, isbitaallo iyo suuq ayaana ka mid ah. dadkii deganaa ee soo haray waxay u guureen goob cusub oo u dhow laakiin magacii magaalada wadata. Giorgio Cangolozzi oo ah maayarka magaalada Boqoryaal waxa uu u safraa daafaha kala duwan ee dunida si uu u raadiyo lacago lagu dhiso deegaankii hore ee qadiimiga ahaa. qoysaskii dhulgariirka kadib ka guuray magaaladu ayuu isku dayayaa inuu dhiirigeliyo inay deegaankooda dib u soo eegaan si halkii ay ka soo jeedeen ay u maalgashadaan. fikradda uu soo jeediyey waxaa ka mid ah in guryihii hore ee boqortooyaalka qadiimiga ah ku yaalay lagu iibiyo €1 oo qura laakiin qofka uu dhiso. aragtidiisu waxay tahay in magaalada dib loo dhiso lagana dhigo goob fasaxyada lagu qaato oo laga furo xarumo ganacsi, maqaayado, hoteelo ay nolol ka jiro oo dadku ay degan yihiin. dadka dalxiisayaasha ah waxa uu suurtagal ah inay ogaadaan taariikhda magaalada oo ay ku soo wareegaan buuraha u dhow dhowna ay ka soo ugaarsadaan. Hardal Guleed.